culimaadudiinka gobolka Togdheer oo kulan ku yeeshay magaalada Burco ayaa ka soo saaray ay habka uu socdo ololaha doorashada madaxtinimada Somaliland bayaan ka kooban 14 qodob waxaanay culimadu tilmaameen in mararka qaar ay dhacaan falal lid ku ah shariicada islaamka iyagoona baaq u diray xukuumadda Somaliland guddiga komishinka doorashooyinka qaranka musharaxiinta axsaabta siyaasadda Somaliland hogaamiyaasha dhaqanka iyo guud ahaan bulshada rayidka waxaana akhriyay qodobada laga soo saaray kulankaasi Xasan Abukar Dhuuxyare marxaladan aynu ku jirnay doorashada iyo howlahan ka horeeyana in Ilaahay subhanahu wa ta'ala si nabadgelyo uu inagu dhaafiyo waxaan ayidayaa ama aan adkaynayaa baaqa culimada gobolka Togdheer ka soo baxay ee naseexada iyo mas'uuliyadda ummadda ka saaran inay gudanayaan oo aan doonayaa inaan cadeeyo in laga dhiidhiyo ay tahay oo in waxa weeyaan cod dheer lagu muujiyo ay tahay madaahibta hadaamka haday dimuqraadiyad noqoto haday noqoto cilmaaniyad iyo waxyaabaha la midka ee la inoo soo raray in aanay ummadan geyin ab iyo sinjitoonana aanay ku lahayn culimadu gobolka Togdheer waxay isugu timi iyadoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa wax kamida bulshadeeda la wadaagaysa haday tahay xukuumadii haday tahay shacba uguna nasteexaynaysa kin dhamaanteen aynu leenahay wanaaga iyo diinta aan ku walaalowno naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarmayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cabsidiisa afkeena aynu ka cabirayno dimuqraadi baanu nahay ama aanu markaa ku baaqaynaa culimaduna sida bayaankeeda ku cad ay yiraahdeen iyada iyo diini meel wada gali mayso arinta inaga dhaxaysa doonta aan wada saaranahay ayaynu u baahannahay inaynu wada ilaashano oo aanay doontaas inala degin oo wixiina dejinayana aynu iska qabanno inuu noqdo kuwa Ilaahay yiri wajacalnahum a'immatan yahduna bi amrina inuu noqdo hogaankaas iyo inuu noqdo wajacalnahum a'immatan yad'una ila an-naari labadaas bay labada hogaan kala noqonaya qodobka koobaad culimada gobolka Togdheer waxay ugu baaqayaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay ilaaliso hawlaha ugu muhiimsan waxa loo igmaday oo danaha ummadda iyo mid diineedba qodobka labaad culimada gobolka Togdheer waxay nasiib darro iyo wax laga xumaado u arkaan in xubno kamid ah xukuumadda Soomaaliland ay ka soo yeedho in dalku yahay dimuqraadi qodobka saddexaad culimadu waxay cod dheer ku sheegayaan in dadka iyo dalkuba yihiin muslimiin dastuurka dalka uu yaalaana yahay mid waafaqsan diinta islaamka sida ku cad qodobka shanaad islaamka iyo dimuqraadiyadna waa laba mabda oo aan sinaba u kulmi karin afar culimadu waxay cadeynaysaa in heesaha iyo muusiga wada socda iswata xaraan ku yihiin shariicada islaamka dhammaan culimadana isku waafaqsan yihiin shan culimadu waxay ku taageereen komishinka doorashooyinka Somaliland go'aamadii ugu dambeeyay ay ka soo saareen arrimaha ololaha iyo anshaxa culimadu waxa si wada jira ay ugu baaqayaan komishinka doorashooyinka qaranka iyo madaxda ammaanku inay xil iska saaraan dhaqangelinta iyo meelmarinta go'aamada laga soo saaray ilaalinta anshaxa suuban iyo ku dhaqanka diinta todoba culimadu waxay asxaabta qaranka ugu baaqayaan inay u turaan ummadda iyo bulshada ay codka ka doonayaan kana waantoobaan kelmadaha xambaarsan kicinta iyo qabyaaladda isla markaana ay dhowraan diinta iyo dhaqanka bulshada sideed culimadu waxay ugu baaqayaan xisbiyada qaranka in aan bulshada cod lagaga doonin waxyeeleynta anshaxa ummadda taa bedelkeeda ay ku waayi doonaan kasbashada iyo kalsoonida shacabka sagaal culimadu waxay guud ahaan ugu baaqaysaa bulshada weynta Somaliland ilaalinta diinta dhaqanka suuban amniga iyo wadajirka ummadda si gaar ah waxaan ugu waaninaynaa waalidiinta iyo waxgaradku inay gutaan waajibaadka ka saaran dadka ay mas'uulka ka yihiin toban culimada gobolka Togdheer waxay ugu baaqayaan guud ahaan culimada dalka inaanay ku ololayn kaga qayb qaadan xisbiyada magac culimo kuna koobnaadaan dowrkooda dhexdhexaadnimo iyo culimanimo 11 culimadu waxay ugu baaqayaan dhammaan madax dhaqameedka dalka sida salaadiinta iyo uqaasha inaanay ku milaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan hawlaha dhaqanka maadaama ay yihiin mustaqbalka ummadda 12 culimadu waxay ugu baaqaysaa xukuumadda musharaxiinta madax dhaqameedka iyo dhammaan bulshooyinka inay ilaaliyaan amniga wax kasta oo waxyeelayana ka dheeraadaan ugu dambeyn culimadu gobolka Togdheer waxay ummadda ugu baaqayaan alla ka cabsi iyo inay iska ilaaliyaan wax kasta oo keeni karaya ara iyo ciqaab rabbi